askari cududii dalkiiyo gaashaanka cadaawihiyo waxaan ahay caaradka naftiisu cabsida aqoon waxaan cisho iyo dharaar qobaha iyo ciridda iyo cadceedda u taaganahay ciideyda difaacideed war degdega ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa macawisleyda ay ka dagaalama gobolada Hiiraan iyo Galgaduud ayaa gacanta ku dhigay deegaano hor leh oo kala ah deegaanka Celehley, Dhuumaadle, Moqoqori, Torodo oo ka kala tirsan Galgaduud iyo Hiiraan. waxaa maanta bilaabmay gulufkii ugu xooganay abid ee ka dhaca Galgaduud iyo Hiiraan. dagaalka maanta ka bilaabmay gobolada Hiiraan iyo Galgaduud. diyaaradaha dalka Turkiga ayaa ku biiray dagaalkan ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda koonfurta Soomaaliya sida uu noo sheegay wasiirka arrimaha gudaha Axmed Macalin Fiqi. fadlan dug soo gaara muuqaalkeena, fadlan muuqaalka noo la gare leegtu muhiim inoo tahay, fadlan muuqaalka share gare, fadlan YouTube-keena aad ku cusub tahay subscribe. oo runtii aan ka xusi karo hadda sargaalkan garabkayga taagan ee taliye suulnuuga iyo saraakiisha dhammaan sharfan ee ku sugan aagan cadawgana runtii kula dagaalamay baqtigooduna oo meesha yaallo annagu gaabta ayaan soo gaarnay difaaca hore. runtii waxaa la dhihi karaa markii loo fiiriyo Soomaali meel kastoo joogtaba waxay u diyaar garoobeen la dagaalanka cadawga khawaarijta ah ee Al-Shabaab. marka waxaan aaminsanahay inay noqon doonto dayrtii ugu dambeysay ee shabaab Soomaaliya lagu xoreeyay. marka ciidamada Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leenahay guuleysta. ciidamada Soomaaliyeed ee halkan jooga iyo ciidamada Galmudug iyo gaar ahaan qabaa'ilaadka oo dhammaantood u diyaarsan inay ninka la dagaalamaan cadawga waa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed. reer Dhuusmarada way ku soo biireen halganka socda. waxaan leenahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan gaari doono meelaha kala duwan oo cadawgu sanado ka hor ummadda uu ku dhibaatay.